ama wax akhrisku waa micyaarka ama waxa lagu qiimeeyo ummadda horumarkeeda. waxaana yidhahdaa noloshan maanta casriga dee la-aanteed maba jirto, xataa alqiraa'a tawdiifiya bay yidhahdaan. waxaad qiyaastaan magaaladan ay degan tihiin oo aan traffic waxaan ku qoran lahayn, oo raashinka waxaan ku dul qoran lahayn, oo dawada waxaan ku dul qoran lahayn, ama se dadku aanay akhriyi karaynin, noloshu say noqon lahayd. waxaad qiyaastaa magaalada aan adressis lahayn. waagi hore de waxba lagu qori jirin soo maaha. waxaad qiyaastaa Toronto aan adress ku qorayn, wax traffic sign aanu qorayn, wax raashin ku dul qoray aanu jirin. yani waxay noqon lahayd nolol adag oo sacaba in la noolaan karo. walidaalika waxay yidhahdaan maanta nolosha casriga dambe iyadu qiraa'o la-aantu suurtagalba maaha. haddaba qiraa'adu waxaa ka asala inay tahay cimrigii oad ziyaadinayso. ilaahayna subxaanaه watacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya cimriga iyo qiimaha uu leeyahy. qur-aan badan baa rabbi wuxuu ku dhaaranaya waktiga, wالضuxى wاleyli ida saja wاlcasri in اlinsaana lafii khusr iyo wixii lamid ah. ama ba uu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam, qofka maalinta qiyaame ka zuuli maayaan gomadiisu dhulka, oo yani waa la haynayaa ilaa iyo 4 shay la weydiiyo. 4ta shay 2 shay baa cumriga ku saabsiisan. taa macnaheedu waxa weeyaan waxyaabaha ugu fiican qofku uu cumrigiisa ku xisaab ku isticmaali karaa waa masalaة اlqiraa'a. waxaan markaa rabaa inaan ka waramo deris kooban oo ku saabsiisan marka koowaad salafi اlumma ama dadkeennii hore iyo qiraa'ada siday u arkayeen ama siday u jeclaysanayeen. intaanan kelmaddaasi markaa soo gudbin waxaan tilmaamayaa dhowr shay. kow, waktiga waxa ugu fiican ee lagaga faa'iidaystaa waa wax akhris. waxaanay u arkayeen culammadii muslimiinta ahayd qiimaha waktigu uu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo. waxa ugu badan ee lagu soo saara misaal, haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido, rubuc saac intuu leeyahay, rubuc saac more than 10 pages baad akhriyi kartaa. qofka ugu gaabiya qiraa'o, qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad 10 page akhrido, sanadkii misaad akhriyaysa? sanadku 365 maalmood soo ma ahayn? waxaad akhriyaysaa 3650. that means akbar mawsuuca ayaad sanad ku dhammayn karaysaa. ugu yaraan buugga caadiga iyo normalka ahi waa 300 ilaa 300 iyo waxoogaa bage, 360 bage meelahaasi, ama 400 bage markaad tidhaahdo. haddaad maalintii 10 daqiiqo wax akhrinayso, macnaheedu waxa weeyaan sanadkii ugu yaraan 10 buug oo noocaasi ama dhowr iyo 10 buug oo noocaasi aad dhamaynaysa. yani mawsuuca في علم الحديث أما موسوعة في تفسيره أما موسوعة في علم كلام أيضا ضمن كرتا بمجرد أن أدقر شيء أنا أدخل ده محي 7 بيج أما 8 دقيقة دون أنا أدوح أخر ده مالنتي. هدي أي واحد برشاد عين كان نقول كاري لهاي ما كانوا لأنا وقت قال دي ليه إمي ساد وقت ياد خسارة سادوا مالينسا إمي ساد واحد بران كاري لهاي. يعني علماء المسلمين تهري وحلا يقاني waxay ahayd dad mawsiiciyiina. mawsuucadu yani dad encyclopedia, qof wixii la soo qaadaba ka jawaabi kara. hadday culuum diineed tahay bikulli funuuniha, iyo hadday tahay culuumtii casrigooda jirtay bikulli funuuniha, ama astronomy ha noqoto, ama geography ha noqoto, ama taarikh ha noqoto, ama طib ha noqoto, ama philosophy ha noqoto, ama riyaadaad ha noqoto, xisaab ha noqoto, waxay doonta ha noqoto. caalimka faqiihe masaajidka fadhiya wuxuu ahaan jiray mawsuuca mutanaqila, maktabad guuraysa oo kullu lfunuun keligii laga heli karo. sabab kalena may jirin, dadka kamay caqli badnayn, bini aadam ka baxsan may ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad waktiga ka faa'iideeya. waxay ahaayeen dad waktigooda ku bixiyey inay wax baran karaan. maanta waxay idhahdaan averageka dadka caadiga ahi bay idhahdaan ugu yaraan 3 saacadood bu TV daawadaa bay idhahdaan.
afreedka caadiga marka laisku dardaro 3 saacadood wakti ku dhadhow buu tv daawada haddaad 3 saacadood wax akhri lahayd maalin kasta maxaa soo bixi lahaa yani halka tvguna haddaad buug ku bedeli lahayd ay fanku doonayo ha noqdo waxaa soo bixi kari lahaa yani fi khilaali 10 sanawaat ama fi khilaali 15 sana waxa dunida lagu hayo fan iyo waxaad jaahil ka noqon lahayd ma jirin